Marka aan ka hadlayno qaababka kala duwan ee muuqaal ahaaneed, waxaynu aragnaa in jasiiraduhu ay ka mid yihiin kuwa ugu soo jiidashada badan dhinaca dalxiiska. Taasina waa in jasiiraduhu ay ku sifaysan yihiin sifooyin u gaar ah oo runtii mudan in la ogaado. Haddaba, muuqaalkan waxaan ku eegi doonaa waa maxay jasiirad, maxay yihiin astaamaha juqraafiyeed oo ay leeyihiin, maxaase shuruudo ah oo looga baahan yahay inay yeeshaan jasiiradaha ee ka bogasho wacan. Jasiirad waa dhul gebi ahaanba ay hareeyeen biyo, kaas oo ka yar dhul weynaha. Waxaa jira dhowr jasiiradood, kuwa ugu waaweyn waxaa ka mid ah Greenland, Madagascar, New Guinea, Borneo, Sumatra iyo jasiiradda Baffin, halka kuwa ugu yaryarna ay si aan xad lahayn u tiro badan yihiin, maxaa yeelay iyagu ma baahsana oo kuma noolaan karaan aadanaha, laakiin waxay leeyihiin dhir iyo xayawaano fara badan. Haddaba, haddii aan ogaanay waa maxay jasiirad, waxaan isku dayi doonaa in aan sharaxno noocyadooda. Jasiiraduhu waxay u kala baxaan laba nooc: jasiiradaha qaaradaha iyo jasiiradaha badweynta. Jasiiradaha qaaradaha waxa ay ku tiirsan yihiin qaaradda, in badan oo ayaga ka mid ah waxa ay ahaayeen qaarado, laakiin waa la go'doomiyey kadib markii ay sare u kacday heerka badda. Noocani waxaa loogu yeeraa jasiiradaha mowjadaha, oo dhacda markii mowjad badani ay daboosho qaybta dhulka ee isku xirta aag iyo aag kale. Jasiiradaha badweynta iyagu kuma tiirsana qaaradda, maxaa yeelay waxaa sameeya nooc kasta oo ka mid ah qaraxyada foolkaanada ee ka hooseeya dhulka. Halkaas ayaan kusoo gabagabeynaynaa muuqaalkeenna. Haddii aad ka heshay muuqaalkan, la wadaag saaxiibadaada.